mahad ilaahay ka sokow waxaan mahad celinayaa bahda isbaahaysiga isbadaldoonka iyo cadaaladda inta ka bacdigeed maanta shirkaygan jaraa'id wuxuu daaran yahay markii aan halka isbaahaysiga gudoonkooda iyo xildhibaanada intii badnayd aan ku kulannay waxaan isla lafagurnay in waddankani badbaado u baahan yahay kow waxaan ku heshiinay ummadda reer awdal u sheegaya oonan iskuna dhaarsanay intii joogtay in miisaaniyadda qaranka 6 gobol si siman loogu qaybiyo oo cadaalad ku jirto waayo SDF2 markan tusaale u soo qaaday awdal fayskiisii labaad 13 barajog ayaa ku xusan 5 gobol mooyana gobolka awdal kuma jiro gobolada qaarkood baa 3 meelood kaga xusan waxaan ka tagnay cadaalad darrada anu kulmiyana ahaan doona laakiin cadaaladdu meesha ay taalo maanta waddanku cadaalad buu baahan yahay maanta cadaaladda cid noogu heelisan coalition ama isbaahays la samaysan haddaan reer awdalna waxaan ka tagnay waxba qarsan mayne waxaad ku qarsataa oo ku qarsadaa bay Soomaalidu tiraahdo cadaalad darrada muuse madaxweynaha waddanka jooga maanta cadaalad darradiisa ayaan ka tagnay Soomaalidu waxay tiraahdaa meed la sii sido maxaa hebel waxa meed la sii sido marxaadkaas la sii sida oo ah kulankeegii 2 jeer ahaa maalintii aan hadlay in hawsha shirgudoonka ka hadlaynay in cadaalad loogu qaybiyo dadka way dhici weyd annagoo waliba nidhi 7 xuneeda mucaaradkan keenayna miskan soo saarayna codkoogii gudoomiye ku-xigeenka koobaad ban xaq u lahayn hana la siiyo ayaan jawaab weynay markan TV-ga ka hadlayna waa loo yeeray haddii aan soo fadhiisanayna haba yaraatay wax natiijo ah iyo wax reer awdal halka u yaalay ma soo taabanna ma jirto waxyaalaha iga yaabiyo waxa kamid ah markaan hortagnay waxaan u baahanahay waxa ee 2 kursiba uu noo sheegay inuu 2 beelood kala siiyay oo habar jeceliye ka dhaxajis kala siiyay ay sidee ku dhacdaan niri xitaa kursiga labaad wuxuu 7 garxajisaan ku haya maalintii bandhig la sameeyayna in qodax baan aragnay garxajiska uu sheegay in qodax baan aragnay markaan mar labaad ku noqonnay aan hor fadhiisanay ay sidee ku dhacdaan ku niri mid baan matalnaa gobol baan ka soo jeednaa intaas xubnood baan nahay war haddii aad 2 kursiba naga qadisay waxaasan u soconnaa jawaabna lama siin war ma ina kaasa naga miisan cuslaaday markaan nidhina wuxuu noogu jawaabay isaaq buu tirsanaya isaaq buu niga bawar yaanagu madaxweyne Soomaaliland aan wadin hadduu oday isaaq noqday taasan ka tagnay taasan walaalaha iyaga cadaalad doonkaan ugu biirnay reer awdalna waxaan u sheegaynaa kitaab Allah iyo dhaar ay intibaanada intii badneedo joogeen ku mareen in miisaaniyada marka la soo dhigo si siman loo qaybinayo haddii cabashada sidii hore aad ka dareeri doontaan oo barino isaaqayn doontaan kitaab Allah inuu maran ku waxaan maaminay wayna mareen وعد الله أنا كقاتي وحشي لنا نفسدنا مجرد
ummadayda waxaan caddaynaya anugu xaq waxaad u lahaydeen inaad miisaaniyadda wax ka heshaan ragana waan dhaariyay waxaan hawshaa dhaafsiisanay gobolka awdal haddaan nahay xildhibaanada xisbiga kulmiye anigoo ah inta kalena u talinayo walaalahay leeyahay war dariiqa xaqa ah kitaab baa layni marin doonaa ilaahay baan u dhaaranay laba jeer baan madaxweynaha hortagnay jawaab baynu weynay war ilaahay baan nagu dhaarshay umadeena inaga u turayn xaqa soo raacaan leh waxaan ballan qaadayaa inaan codkayga ugu hiilinayo xaqu halka uu yaallo oo garabka isbedel doonka Cabdirasaaq Khaliif iyo Umar Jaamac